السلام عليكم ورحمة الله. مقعي وعدنا سلطان waxaan ka tirsanay bahda Astaan TV waxaan halkan caawo joognaa inaan idiga raali galino barnaamijkii aanu idiin marti ka qaadnay ee diiniga ahay walaaladii fulinayeen oo suurtageli waaya caawa sababo la xidhiidha badnaansho dad aanan fulinaynin markii qorshahaygu wuxuu ahaa inaan 5,000 oo qof aan ku casuuno hotel Mansour laakiin tiradii oo intaa xadigay ka batay ayaa sababtay inaanu suurtagelin oo codsiyo ka imanaya hotelka xubnaha amniga iyo dadweynahaba ayaa suurtagelin weydiinaa barnaamijka sidii loogu talagalay sii socdo taas aawadeed baan idiga raali gelinayna waxaa kusoo dhaweynayaa walaalkay sidinta kale aad iyo aad wallahi yani aniga aad iyo aad baan ugu xumahay in shalay kulanka ay socon weysay maantana sidoo kale yani sababtuna waxay tahay jacayl anaga aan idin jecelnahay iyo amnigiina iyo wix lamid anagoo ka fekerayna inta loogu talagalay in ka badan ayaa yimid yani xitaa meesha howlka gudihiisa oxygen waa la qaadan waayay xitaa anaga waxaan isku dayna inaan soo galno oo aanba soo geli weyna wix lamid ah wallahi aad baan ugu xumahay yani raaligelinta aan bixinay xitaa waan ka xumahay laakiin ilaahi subxaana watacaala idin xifdiyo sida wanaagsan aad ugu qayb gashaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa kulan kale oo ka qurux badan inaan qaban doono insha allah maxaa dhacay maanta maxaa cumar horta waa farxad wax naxdini ma jiro waxa farxada in dadkeenu uu wanaaga iyo barnaamijyada dhiirigelinta iyo barnaamijyada khayrka ah uu tiro 10,000 iyo ka badan ugu soo bixi karaa taas laftigeega guula waa arrin ay tahay inaan ku wada faano ummad ahaan taas marka laga yimaado ballanta ahayd in maanta barnaamijkii ka qabsoomi lahaa Mansour ay dhici weydo sababaheega Cadnaan baa inoo sheegay shalayna boorama taatu lamida ka dhacday tiradii goobta loogu talagalay 3 libanlaabkeed baa timiday taasi waxay khalkhal gelisay hotelkii uu ka dhacayay barnaamijku waxa markaa khasab noqotay in amnigii iyo hotelka shaqadiisii iyo dadka badqabkoogiiba uu cidhiidhi galo khalkhal galo markay halkaa marayso wanaagga aynu isugu nimanay khatar ka badan baa dhici karaysa oo qaarkood aan aragnay marka waxaa talo kadib khasab noqotay in barnaamijku joogsado si sidan ka qorshe weyn oo looga diyaar galow badan yahay sidana loo qabto sababtaas uu runtii barnaamijku istaagay midkaayana intayada raaligelinta idin hor joogta ma jeclayn marnaba iyo sinaba in barnaamijku baaqo aniga iyo Umar iyo Abubakar safar dheer baan runtii galnay jigjigaan barnaamij ka sameynay waan laabano boorama ka sameynay annagoo neefsan oo nasan baan haddana soo safarnay halkan haddana 3 maalmood muddo ku siman ma naan qaadan xitaa waqti nafteeda lama naan qaadan marka culays bay nagu tahay ka weynka idinku tahay in barnaamijku qabsoomi waayo sababo la xidhiidha badqabkeena dhammaanteen iyo goobta shaqadu ka socotay oo khalkhal weyn ku yimid oo khasab noqotay in la joojiyo marka mar labaad anagoo xishoonayna oo runtii ka khajilayna inaan idin raalli ahaada waan idin raalli gelinaynaa waxaase aan ballan qaadaynaa in barnaamijkan oo si weyn la idinku qorsheeyey oo aad si nafisa oo badqab leh oo amni leh oo wax khalkhali ku jirin aad uga faa'iideysanaysaan qaab ka duwan qaabka hadda loo maariyay insha Allah taala oo ilaahi subhanahu wa ta'ala wanaagi maanta soo bixiseen insha Allah astaani dhamaan waa soo qaban qabiibo ay ballan qaadeen nidaam ka fiican nidaamkan hadda insha Allah taala oo dhamaantiin ku farxi doontaan anagana farxad inoo tahay insha Allah goordhow la socda waa idin ilaamin doona insha Allah taala yaan ismoogaan waxaan idin leenahay meel kasta joogtaan habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku yara daraynaa inta Abubakarna waan jecelahay inuu ku dare barnaamijkii boorama waxay nooga baaqday dad badni keentay mushkilado kan caawuna tiiteedii weeyaan marka halkaa 2 cashir baa ku jira in dib u qorshayn xeelad leh oo laga baaraandegay la sameeyo iyo inaan dareeno in dadkeenu wanaaga uu u jecel yahay si aynaan filayn inagu maasha Allah boorama berri galabta markaa tagaynaa stadiumkii oo si aad loo idinkaga shaqeeyay baan ku sameynaynaa marka reer boorama inta ku niyad samaadaan oo berri galabta oo axada stadiumkii waa ballansan si aad looga shaqeeyay oo amnigiina iyo deganaantiina
iyo maaragtay qaab wanaagsana laydinku diyaariyey baan ku samaynaynaa. Hargeysana magaalo la dhaafi kara maahay, waa caasimadii dalka, waana khasab in barnaamijkaasi ka dhaco, laakiin faahfaahinteeda dib baan idinka soo sheegaynaa insha allahu tacaala. aad iyo aad waa mahadsantihiin. السلام asalaamu عليكم calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله.